mid ka mid ah beelihii ka qaybgalaya shirka maamul sameynta ee gobolada dhexe ayaa shaaca ka qaaday in gebi ahaanba shirkaasi ay isaga baxeen sidoo gaalkacyo warkan kaga soo diray Liban Ciise Cumar odayaal iyo waxgarad ka soo jeeda deegaanka Bacadweyne ee gobolka Mudug kana mid ahaa odayaashii ka qayb galay shirka maamul sameynta gobolada Mudug iyo Galgaduud ayaa sheegay in ay gebi ahaan isaga baxeen shirka maamul sameynta gobolada dhexe ee ka soconaya degmada Cadaado qaar ka mid ah odayaasha waxgaradka iyo siyaasiyiinta beeshaasi oo maanta la hadlayay warbaahinta kadib kulan ay ku yeesheen magaalada Gaalkacyo oo haatan dib ay ugu soo laabteen ayay faahfaahin ka bixiyeen sababaha keenay in shirkaasi gebi ahaanba isaga baxaan magacayga waxa la yiraahdaa Nuur Macallin Maxamuud waxaan ka tirsanahay degmada Bacadweyne odayaashooda ayaan ka mid ahay odayaal dhaqameedka ayaan ka mid ahay waxaan ka qayb galnay shirkii lagu qabtay Cadaado waana ka soo baxnay annaga oo mataqaanaa ka tirsan degmada Bacadweyne sababta aan uga soo baxnay waxaan ka garan weynay masiirka aan ku lahayn haddii ay tahay nabadoonkii haddii ay tahay odayaal dhaqameedkii haddii ay tahay wixii degmadu ay xaq u lahayd midna markii aan ku garan weynay shirkaas waa isaga soo baxnay halka fadhiga oo cabanaysa kana socota beesha degmada Bacadweyne sida uu sheegay odaygii ka horeeyay shirkaas waxaan u tagnay in wax ka dhismaan waxna aan ka dhisano xuquuqda aan ku leenahayna aan helno ayaan u tagnay si kalsooni ah oo niyad furan yaan ku tagnay nasiib darro waxa ka timi waxa nooga yimid waxaan filayn marka taasoo keentay sida la ogyahay goboladani waxay leeyihiin dhaqan soo jireena oo annaga kaliya aan ahayn deegaanka dadka dega oo dhan u dhaxeey muxuu yahay dhaqankaasi waxay leeyihiin hoggaan dhaqan oo looga dambeeyo talada iyo masiirka ummadda lagagana tala qaato guddoomiyana maaha markii ugu horeysay ee cabashooyin ku aadan qaabka uu u soconayo shirka maamul sameynta gobolada dhexe ay ka soo yeerto odayaasha waxgaradka siyaasiyiinta iyo bulshada degmada Bacadweyne ee gobolka Mudug dhawaan ayay ahayd markii dibadbaxyo looga soo horjeedo qaabka loo maamulay xulista ergooyinka ka qayb galaya shirkaasi oo ka dhacay degmada Bacadweyne iyo deegaanada hoostaga Liban Ciise Cumar Kalsan TV Gaalkacyo.